ku soo dhawow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabaneen oo noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أنا أقول مقعد عبد الغني أحمد إسماعيل أهنا أرض كسعودة جامعة نيو جنريشن جروب هيجن وحنا مكوت ترتميا وريج لبعض أو وسوق قدمني مع المكهر بسم الله الرحمن الرحيم مقعد عبد الناصر مسنور وحنا كسعودة جامعة السوا ميديكال يونيفرسيتي وحنا وسوق قدمنا ده وريج ترتن كلابات وحنا كفرح سنة وسوق قدمنا ترتن كلابات بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada wareegii labaad ee tartanka adeega bulshada runtii wadin hambalyeynaya waxaad ka soo baxdeen wareegii koowaad maanta waxaad galeysaan wareegii labaad teamkana waxa ka socdaan jaamacadda Addis Ababa Medical College teamkana waxa ka socdaan jaamacadda New Generation bal maxaad filanaysaa maanta inaad ku tartamaysaan kale tartanku barcadii barmadow buu leeyahay laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa guul baan rajaynaa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أنا waxaan filaynaa برنامج إننا كقريب قلنا بلشدنا فائدة وله أنا قلنا أن نقول كرتين إن شاء الله هدول لها إدمه. أوكي واحد كنت ترتمي سلمان هالكم بكتيران وحرتشينا يا إن شاء الله إن نسيب كنا لو نقوم ضنا ميل كفر حلان. أوكي إنه آخر. waxaad ku tartamaysaan in wadooyinka ku yaala bartamaha Hargeysa ee sida xun u go'san aad hagaajisaan kolba inta aad awoodaan lacagta aad haysataan bashqada ayay ku jirtaa waxaad haysataan 24 saacadood okay waxaad ku tartamaysaan waa wadooyinka Hargeysa bartikeeda ku yaala ee sida xun u jajaban ama u go'an nad qaar kamid ah oo awoodeeda iyo budgetkeeda aad leedisiiyay aad hagaajisaan muddadaasna waa 24 hours weeyaan hadda wareegii labaad ka soo gudubteen cidda wareegan ka gudubtaa wareegii ugu dambeeyay finalka galaysa halkaas runtii aad ku suugaysan abaalgud kale خير بأدير الشينا يا صدا أيها شقة وناكس برنامج كنا نطلب ونرحنا وضوين حل بولها مقالة ده يعني صوت يعترنا هي وحنا بهم هاي إنه نفتح ولا مقالة كسور إنه لا صح حل بولها أمي مسنتة خاطف أمي مسنتة إذا جار كاو كمان إنه تصوت إنه ضيع ترنا إنه كيف هذه سنة العتير اللي نودي بيه شا كسر هذا يرتاح هذا dan inta awoodeen inta ku balance karin ha balance baan baahanay in balance kareen inta dadka wax ugu qaban kareen ugu qabano dadka wadooyinka kayma marka waxaan marna ku dowladda madaxtooyada tababarta tanida cadda u baxda taabayo u baxda waxay magaaladu waa wadwad waxa wada burbursan tan kilalka tagta kuwa jiiseen qara tu xamal kala raba aad u burbursan la buuxiyo la hagaajiyo gaariyaashana marayaan wadadii dadkana ay marayaan labadiiba muhiim ah u tahay kuwaas in hagaajin doona marka insha Allah abaan intaan iska dhaqan bilowna hawsha insha Allah inuu mariyo hawl bal inoo diray dabcan waxyaabaha ugu weyn ee u baahan yahay kamid ah in koob iyo wadadii halo wadooyinkeenu shaqadii wax weyn ee qabano wadooyin burbursan in dayactirno marka koobina wadooyinkii halo wadooyinkii markay helo shaqada labaad qaadana xawiye in cidii wadada dhis lahayd helo dadka wadooyinkii baa Hargeysa oran karnaa inay ku burbursan yihiin bartamka tan jaamacadeena ka dambeeyay la sheegay kacada saakan dibdamiska doonaa waxay soo raadin doonaa wadooyin kala burbursan wadooyin fara badan oo burbursan ay jiraan aad u liita taacabayo kala liidata waxa liidato kale taas halkaas cabayo soo gashay kaalinta nidka soo martay soo liidata halka sheekh madar dhex martay qudbiga halka qudbiga intaan goolada shaqo liidata kala wadooyin badan oo dib iska dayactirsan yihiin ka xun baahannahay صح ودينك صوت مرة دونا تفهم كل حق أصيبه بس إن شاء الله أين كل حد صح أصيبه كايدا سوون اسكدين
talo weydiini bal meel talo shirkadaha dhismaha talo waxaa weydiin shirkad fiican oo horta dhistaa okay wadooyinka warkaas that's good saas min kol geli doona insha Allah kaso kale inankii oo xaalad xanuunsaday isagana dhamaystiri doona insha Allah intaas inuu caawinaan helaa wadadii iyo shirkadda dhisisay temperaturen aan hawsha shaqada ku dhaqaaqna insha Allah kaas isku kabeen Heleloi, 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 kooxdii ka socotay jaamacadda New Generation ayaa waxa ay bilaabeen inay gudagalaan hawlihii ama adeegii bulsho ee laga rabay oo ah inay dayac tiraan waddo burbursan. Heleloi, 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 irani daweyn mahalabsaday qabyadu noloshay ka qayb tahayo uriyaahe qabyadu noloshay ka qayb tahayo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أنا قوة أرضي إذا جروب إن حريص وكسرت جامعة النيو جنريشن وكقريب قليل ترتن كأداء قبل شدة ومال قليل بانك بريمير بانكه وحنوسو قدمني ورقي لبعض أنا كنت ارتمني إن أنا ضيع ترنو وتكمل ذا ودوين كمجالات هرقيسة ده مرة بربورسن جروب كيف هو وحكاكم من صدق قف وكسر عشان عدد نيو جنريشن ما دام أنا وحبك هو قبل كرن يضوء وضع بربورسن هذا المركب ورهم بيجي وهاي أنا وحبك قبل لكن تاج تيدا أنا قبلني ما دام إنه أجنه إنه دامر جليه أن عمود لجوب بحين يسليد أن دامر سوي بينه شيء سوي بينه قاعن قلنا حمال كذي يحول بقلني وحي إلهي بقى اسكم محله إنه إلهي نو صورته قليه إنه وحوجا بقولي حوجا عم بترى لما يسترنه إن شاء الله وحنا رجعنا أنا أنت كهذا ضمني أمد ولد قبطها ما عندك هلا إلهي أود السيانة قبطه تنا إلهي وخرجت إلهي ضدك إلهي كوا أنفعي جروب هان هاوش أصلا قبلني جروب هنا أدي بيجوا مسين يجوا إلا عشان يتولى اللي هدي الصبح لما إلا ما أنت سيدي هدي الصبح لما وهول شري ما دام الله تهين دولته مرة بدنا حفيسة ده اللي هلا يضاف فصحي اللي جوا ده شروي دولتنا فسح تهاي أنا حفيز ولا دولت اللي هذا بس وقرا على الباب كيسة Heleloi, 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 irani dawain mahalabsadahi Heleloi, 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 irani daweyn mahalabsaday dhinacoodana tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis ayaa iyaguna bilaabay fulinta adeegooda bulsho oo markan ah dayactir waddo qabyadu noloshay ka qayb tahayo markaad qardhistaba qolbaha madhani qabyadu noloshay ka qayb tahayo markaad qardhistaba قلبها مداني قروح ربي اللين في حي ورياه وريا قروح ربي قماتي بحشي ورياه ورياه وريا اللين قف مسيو
qofka leehibadi quruxda rabiba qumahati baxshe ilayn qof ma siiyo qofka leehibadi qabyadu noloshay ka qayb tahayo waa بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Iskariic Ismaan Xirsi oo ka socda jaamacadda Addis Ababa Medical University sidoo kalena groupkaygu waxa weeye groupka Daryeele waxaanu ka soo gudubnay wareegii labaad wareegii koobaad waxaanu ku suganahay iminka wareegii labaad oo aanu ku tartamayno dayactirka dhisidda wadooyinka burbursan ee magaalada Hargeysa waxaan halkan iminka ka hirgelinay ama aanu ka dhisnay halkan ku suganahay waa laagta horumarta xarunta ciidanka doddomiska qaranka oo ahayd laag lagu dhibaataysnaa oo laagtaas oo ahayd laag aanay marin wax la yiraahdo baabuurtu aanay marin ama isticmaalkeedu aad u yaraa muuqaalkeedu horena uu kan yahay oo arki doontaan kaasoo ay baabuur fara badan galeen يعني maalintii ciidanka doddomiska soo noo sheegay maalintii 4 gaari ilaa 3 gaari inay ka saari jireen oo galay waxa ka qodnaa boholo waaweyn waxa ka qodnaa godad waaweyn oo kala dhaadheer oo gaarigu markuu mid ku dhaco uu ka kala ku dhaco gaarigu halka ku geli jiray lacag bay lagu dhibaataysnaa sidoo kale aanay totally mari karin baabuurta waaweyn aanay mari karin ay maraan baabuurta yar yar kuwaas oo waliba ay 50-50 tahay inay ka gudbaan iyo inay ka gudbin alxamdulillaah rabbil caalamiin dadaal dheer kadib waxa groupkayga Daryeel ku guuleystay inaanu lacagtan u qabano shaqadan annagoo lacagtan sameynay inaan markii hore ku goglo carakaawo intaas isku rogo carakaawo oo san dhulka uga soo qaadno sidoo kale aanu sameyno u dhigno waxa la oran jiray chaygii aanu marino mashiinka loogu talagalay oo lagu adkeeyo sidoo kale hareerihii oo kale aanu gelino shubab bira anagoo dhinac kasta aad aragtay inaanu gelinay bira gelinay birahaas oo lagu talagalay dhowr qodob sidoo kale biraha waxa ka hooseeya shub sibirkiisii ciidiisii jaygiisii wixiisiba wata ayaa biraha ka hooseeya si aanay ciidu halka uga soo fagin laagta yar aan dhisnay marka waxyaabaha kale aanu wadnana waynu ku sheegi doonaa laakiin laagtan waxaanu qabanay waxweeye inaanu jaygeedii ilaa carakaawadeedii ilaa biraheedii ilaa rijigeedii ilaa shubabkeedii oo dhan hadday sibir tahay hadday concretekeedii tahay aanu laagtan dhammaystirnay laagtan waa laag iminka aad u dhammaystiran alxamdulillahi rabbil caalamiin waad arkaysaa baabuurta waaweyn iyo kuwa yar mid walba xawaaruu ku dhaafaya waxay samxaddii ka yaraynaysaa ama jaamti ka yaraynaysaa waddada halbowlaha ee magaalada madaxtooyada hormarta ma aha shaqadayadu tano qura waxaan wadnaa 3 shaqo kale oo ay ka mid tahay wadada hormarta ciidanka qaranka xaruntooda Birjeex ama halka la yiraahdo ilaalada xeebaha taasoo ay boholo waaweyn iyo hogag waaweyn ka qodnaayeen halkii hogba 3 sentimitir balac leeka guntana uu leeka 3 mitir balac leeka guntana uu qodnaa 6 sentimitir taalabtarkeeda waxaanu sameynay dib habeyn baan ku sameynay kofar baanu saarnay wax walba waan jaygeedii ilaa daamurkeedii wixii wadadii kale aan u ekaysinay marka alxamdulillaah taas way dhamaatay waxaa kaloo noo hadhay iminka wadada ka timaada galbeedka magaalada Hargeysa oo ah qodob waxqabadkayga saddexaad haddaan groupkayga Daryeele aanu ka qaban doono marka laga soo galo controlka magaalada waxaa ka qodan godad waaweyn ma ka qodan taas oo aan iyaga laftirkooda idin marin doono oo aan ku sameynay caratuulkii dhignay iyo wixii kale aan ugu talagalay taas oo aan ugu talagalay baabuurta marka ay marayaan inay xawaaro ku mari karaan ama ay at least socon karaan oo godadkii waaweyn baabuurta ka beerayeen shilka gelinay marka saddexda qodob baanu qabanay ay ka koob tahay laagta hormarta xarunta dabdamiska oo laag aad u leeyahay ahayd laag ay ku baxday qarash aad u badan ku baxay maadaama laagtu u baahanayso kicin fara badan intaas oo loo dhaw carakaaga baahan qodobka labaad qoon waxweeye wadada ilaalada xeebaha ama wadada hormarta stadiumka intaad gaadhin markaad gaadho xarunta Birjeex xarunta ciidanka qaranka Birjeex iyo sidoo kale waxa kale aan qabanay waxweeye wadada galbeedka magaalada ka soo baxday laftirkeedu aad u burbursan marka la soo galo saddexda qodob ayaa groupkayga Daryeele ku tartamaya wareegga labaad xamadasha tartanka soo galay tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis Medical College markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada Mubaarak Ibrahim Aar waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada Mubaarak waxa uu gudoomiye ku xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa imikana waa gudoomiyaha jaamacadda Beder waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad
ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee maasterta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada london. ismaaciil waxa uu muddo dheer wadamo kala duwan oo yurub iyo waqooyiga ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xidhiidha horumarinta bulshada. ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada boorame ee loo yaqaano boorame job center. axmed cali xasan waa injineer master of science development studies waxa uu ka qaatay jaamacadda hargeysa. waa wasiirkii hore ee cadaaladda somalilan. waxaa kale oo hore usoo noqday wasiirka caafimaadka. waa kuma cabdirashiid yuusuf gaaxnuug waxa uu maaster culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka uganda. sidoo kalena waxa uu maasterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka suudaan. waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda hargeysa. sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay-adda african relief. xamdi maxamed xuseen waxa ay diyaarisaa master of international cooperation. waxa ay madax ka tahay tv-ga goobjooga ee somalilan. sidoo kalena waxay guddoomiye ku-xigeen ka soo noqotay academic of art and science. waxaanay guddoomiye ka ahayd ururka qoraayaasha somalilan iyada oo sidoo kalena xubin ka ahayd boodhka ururka soonyo. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعيق واسكري عثمان حرسي هبة عبد الكريم إبراهيم أو كسر جامعة الثاوى أمريكان يونيفرسيتي وحن كتر تمينا إن نضيع ترنميت كمية ودوين كمجالات هرجيسة وحن هكذا كبحنا استدي هبين نمو أنا جو شقة يد واحد إن نضيع ترنميت كمية مجالين ودوين كمجالات هرجيسة وحن إسلام مركب بلون شقة يدي أنا جو كحيسنا إسلام مركب إنجنير كشقية شركة عماني تحصل أنا قلت لك الله إنه نقل شقية dayactiridda ama uu noo qiimeeyo wadooyinka iyo qarashaadka ku baxaya markaan habeenkaa ka baxnay waxaanu baadhnay wadooyinkaan u baahnayn annagoo kriteeriyada wadooyinkaan u baahnay ka mid ahayd wadooyin godad waaweyn leh dadka dhib ku haya baabuurta dhib ku haya shililkooda badan yihiin sidoo kale wadooyin meelo muhiimo santara ku yaala oo xarumo muhiimo santara ku yaala sidoo kale wadooyin jaamka suuqa ka yareyn kara oo suuqa u dhow sidoo kale haddii la dhiso jaamka suuqa ka yareyn kara intaa markaan bilownay waxaanu saddex wadaan isla garanay wadada dabdamiska laagta dabdamiska hormarta wadada ka soo gasha galbeedka magaalada Hargeysa iyo wadada hormarta xarunta ciidanka ee Birjeex ee ku dhacda halkaas ka soo galaan wadada barka ee aad Hafladan saddexdii wado waxaan ku bilownay isla subaxiiba waxaan diyaarsanay qalabkii waxaan ku bilownay wadadii dabdamiska wadadii dabdamiska waxa aan qabsanay waxa kamid ahaa inaanu kaysano laba iskorogo carakaawa inaanu kaysano jaygayagii inaanu kaysano shaqaalii ka shaqaynayay inaanu kaysano laxaamadii inaanu kaysano birihii maadaama meeshu laag ahayd dabdamiska dhib bay ku haysay dabdamisku halkan soo mari lahaa wadadii mari lahaa gargaarka ka soo dhici lahaa mari lahaa wadadii cali jirto hortiisa waxay ku qabsadeen jaamtii deeramol ka soo galo markaa administ laagtii baanu damacnay laagtuna markaanu saa u tagnayba baabuur baa ku jirtay baabuurta ma martaba midh baa markaasna uu gala dabdamiska ka saara markiiba waxaanu bilownay dayactirkii wadadii baanu injineerka u keenay gudud waaweyn bay leedahay waa boholo waa laag wuxuu yidhi waxay u baahan tahay qalabkaasay u baahan tahay sida bridge oo kale inaan u dhisno wadada sida bridge oo kale inaan u dhisno wadadii baan bilownay subaxii bilownay jaygii iyo wixii waxaan dhignay carakaawadii waxa la mariyay rugleydii baa la mariyay markii la mariyay waxa la dhisay hareerihii biraha ayaa laga taagay birooyin waaweyn sidoo kale shubba hareeraha laga raacisaan si bridge oo kale aan u dhisno aan u go'in injineerkuna qaab buu u dhisay biyuhuna u mari karaan sida laag bridge oo kale waxaan ka gudubnay waxaan tagnay wadada kale waxay lahayd saddex god oo waaweyn godkii isku jiro 3 mitir 60 sentimitir tahay saddexdii wado waxaanu sameynay jaygii baanu dhignay daamurkii baanu dhignay haddana jaygii baanu dib u dhignay sidoo kale waxaanu tagnay wadada ka mid ah wadada galbeedka magaalada Hargeysa tagta wadadaasoo iyaduna godad badnay lahayd marka wadada waxaan ka dooranay inta baabuurtu ka degto aan baabuurtu halista ku inaan mari karin intii baan dayactirkooda bilownay annagoo carakaawadii lagu talagalay dhignay iyo daamurkii nooga soo haray wadada kale annagoo marinay waxaa noogu muhiimsanaa wadada taa bridge-ka waqti badan naga qaadatay maadaama meeshu aan bridge kamaanaan dhisino bridge biyaha hoos mara laakiin waxaan ka dhisnay si bridge waago kale bridge baan hareeraha ka taagnay shub baan raacinay concrete aan baalkii aan raacinay waxaan ku shubnay baalkii jaygii iyo carakaawadii danteetana waxa dhacday waxaan marnay rugleedii iyo laxaamadii okay su-aasha anaa idin weydiinaya eeg qarashka haysata waa mise boqol weeyaan $400 saddex dariiq ayaa doorateen
selectionkiina wuxuu mahay 3 dariiqo muhiim ah doorateen haddaba waxaadna fahamsiisaan $400 saddex goobood oo kala duwan sida bal aad u leekiisiseen sababtu wax weyn dariiq waxa lagu dhiso waa garanaynaa waa hawl culus saddex goobood oo muhiim oo xataa mid bridge aad u leekiisiseen baad samayseen qarash 400 dadku sidee u fahmi karaan inaad waxaas oo dhan ku samayseen okay 400 aanu haysanay kumaana wada qarash kareen lacagta reportka noogu qoran waa $688 waa $700 oo la $12 la labada fooste labada ma la soo bixi karaa xisaabteeda okay hadda 400 baad sheegateen imika hay 400 lacagtana loo dhiibay waxaan ku darnay $288 reportkeegana ku qortay idinka ku daray ha anaga ku darnay na fahamsiye ha 400 baan loo dhiibay waxaan ku darnay $288 reportkana ku qorantaa iskoroga labada iskoroga carakawada waxna laga siiyay $460 foostada daamurka iyo qaadisteeda waxna laga siiyay $142 halka iskoroga jayga waxna laga siiyay $120 gaadiidka transportationka nagu baxay labada cisho facilitationka waxna laga siiyay $22 shaqaalu 9 bay haayeen injineerkuna mid buu ahaa $136 bay haayeen biraha iyo jarjaritaankooda iyo qaadistooda $60 bay haayeen laxaamadisay biraha iyo laxaamad $30 bay ahayd sibirkii iyo shubkii aan ugu talagalna waxay ahaayeen $7 intaasay dhaqaalaha iyagu ahaa sidoo kale rugleyda waxaan nagu caawisay mid ka mid a familigeyga oo noogu deeqay inaan halkaa rugleyda marino halka saacadna waxaa lagu kareynaya $75 rugleyda meel kaga kareeyay lacagta xisaabtu lacagta qalabkan iibsanay 300 wuxuu ku dhamaaday $394 waxa ku dhamaaday alaabtina loo siibiyay $406 baa ka dhacay ka maqan yihiin laxaamadii ay ka maqan yihiin shaqaalihii ay ka maqan yihiin transportationkii waxaas oo ay ka maqan yihiin inta kalena waxay ku jirtaa lacagta $288 anagu waan ku darnay maadaama dul waan dhisanay waa mahadsantihiin su'aasha labaad weydiinaya waxa weeye marka laga tago bridge-ka oo cabirkiisa aan garan karno labada goobood kale waa yani space intee leg ayaad dayactirteen wax ka qabateen labada wada kale waxaan dayactirnay waxay ahayn 3 god oo waaweyn godku wuxuu leegaa xagan 3 mitir buu ahaa san u ahaa xagan 2 mitir buu ahaa godka kalena sidan wuxuu ahaa 2 mitir godka kalena wuxuu ahaa 1 mitir laakiin iskoys bay ku yeelan baabuurta oo godkan intuu isla gaadhu ka soo beed buu kana soonay ka soo beed dana ma shilal badan baa ka dhasha marka god saas ahayn ta kalena godku may dhaadheerayn waxay ahayn god qodqodan oo xag galbeed ku yeelan su'aasha ugu dambaysa weydiinaya waxa weeye waxa aad iyaabu arunta marka la sheego goobta bridge-ka waan maraa waanan aqaan mar kasta cilad baa ka taagan oo dhibaato way ka dhacdaa in lacag xataa intaad ku darteen $700 aan dhannayn bridge-kii iyo labada good ee kale baad ku hagaajisaan horta waa arrin aad iyo aad cajiib u ah qodobka koobaad qodobka labaad marar badan baa isla meesha goobta bridge-ka la hagaajiyey goobta dadamiska la hagaajiyey roob markuu yimaadana daadkii mar labaad buu qaadaa oo way xidhantaa sidee aad u hubin kartaan in roobka soo socdaay awna lacagta khasaare ka dhigayna meesha ayna u baaba'in mar kale markii hore si qolada dibdemiska ay noo sheegeen waxaan badanta anaga hagaajin jirnay bay yidhahdeen dibdemisku marka ciid qudhaatay ku shubi jireen anagu maalintii dhibaato intaan ciidaan ku jibin waxaan ku shubnay waxaan meesha dhignay dhagaxii baan markaan dhignay kabacdi carakaabada ay laba iska roga carakaaba ayaanu saarnay kabacdi jaydi baan saarnay midda kale ta dhinaca kale koonaha awal way banaanaan jirtay oo roobka dhinac markuu daadku ka yimaado dhinaca kale buu ka saari jiray marka dhinacii kale hareerihii waxaanu kaga samaynay biro iyo garayd baanu ka samaynay shubna waanu ka dhignay waanu sibidhaynay meeshii daadkii xagu maraya markaa daadku wuu marayaa laakiin ciidii ma qaadan kara dee wuu dul maraya biyuhu dul marayaan laakiin hareerihii ay marka hore ciiddu ay ka bixi jirtay waa la sibidheeyey birana waa lagu sameeyey qaabka aan u samaynay sida injineerku noo sheegay qaab lacagteedii hore waa iska lacagteedii hore kale laakiin qaabka biyuhu u marayaan iyo waxaanu dhignay iyo birahan hareeraha aanu ka taagnay shubka aanu ka taagnay waxay ka caawinayaan ciiddii daadku sida xaga ka siday inay soo maraan markaa meesha waxaa soo maraya markaas biyihii qura soo maraya oo ciiddii waxay reebaya biraha iyo shubka aan halkaa dhignay sidoo kale waddada waxaan u sameynay sidii lacag qaab noocaas oo kale baan u sameynay oo sidii jaranjaradeedii oo kale saa loo karayo si dalcad oo kale baan u sameynay biyihii halka dhexday maraya godadku waxay ku yaaleen labada goone sare waxa weeye horta reportkiina ilaa waxaa tiindada qoonyahane sidan iminka aad ka sheekeynaysaan hawl weyn baad qabateen hawshiina kharashkeedii maydaan wada xisaabin waxay ahayd markaad soo bandhigaysaan inaad meesha wixii kharash galay oo dhan ilan qiimeyn baa la sameynayaa iminka waxaad tidhaaheen $700 oo $12 la waa lacagta kaashka aad garanaysaan
rugleyda waxaad tiraan saacaddii 75 bay ahayd inaad xisaabisaan bay ahayd injineerka idin see ku hesheen injineerka waxaan ku helay waa family-ga shirkadda Cumaan uu shaqeeya markaan uu sheegay hawsheeda isagana waxaan siinay dee lacag shaahiisa soo kalena caawimo uu nagula shaqeeyay maadaama laftirkiisa mutadawacnimo aan wadno waxaan ku qancinay inuu mutadawacnimo ku shaqeeyo laftirkiisa okay marka waxa weeye budgetka inaad waxay ahayd reportkiina all the budget horta taas waan ku xusnay waraaqada meesha ku qoran rugleeday noqotay rugleeda anaga lacagta ma ana bixinin oo wax naga bixisay lacagta intay tahay inaad ku qortaan baahayd ilaa lacag weeye ha taas ma waan gartay boss bay leedahay waxay inaad tiraahaan 3 saacadood bay shaqeynaysay $75 bay ahayd intaasay noqotay fundraising waxa lagu caawiyay iyadoo caawimo abaad taas kale waanu ka ilownay waxaan maadaama inantu bixiso anagu aanan jeebkay ka bixin saasaan uga ilownay laakiin waan ku dari doonaa haddaan guuleysano wixii dambe insha Allah waqtigii la idinku talagalay ma ku dhamaystirtaan hawsha waqtigiina loo dhiibay waan ku dhamaystirnay su'aal yar baan idin weydiinaya cajiiba waxaad ku raaciliseen ehelka naga caawiyo saddexdiina ma isku ehel baatiin mahayade ehelku wax kala naga muu caawine waa injineerkaas oo aan u yeedhay oo inta aan kuri nala qabo iyo inanta walaasheed ka caawisay inay intaa u qabato ay isku ehel manihin mid kale labadooda waxaan ku qancinay inaan mutadawacnimo wado iyaguna ay mutadawacnimo ku shaqeeyaan marka ehelkii ay kala shaqeeyay hawshan inaan mutadawacnimo ay ku shaqeeyaan waa la caawiyay markana waxaa bilaabantay inay kooxuhu guddiga garsoorka barnaamijka ay u soo bandhigaan howlihii ama adeegyadii ay soo fuliyeen waxaana hadda madasha soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation adlaabi kartaan annagoo magacaygu yahay ilaa xariis kana socodna jaamacadda New Generation kana qayb galayna tartanka adeegga bulshada ee uu maalgeliyay Premier Bank wareegiisii labaad waxaanu kaga qayb galaynay wareegan inaanu dayactirno waddo ka mid ah wadooyinka magaalada Hargeysa dhex mara annagu waxaanu halkan ka qaadanay markii nala siiyey title-ka 8 barkii meelaha habeenimo wax ku dhow baar meelahaas ay ahayd 24 saacadood gudahoodna waana loo qabtay inaan wadada ku soo dhameystirno markaan groupkaygu halkan ka baxnay waxaanu focuskii diiradda saarnay inaanu raadino wadooyinka magaalada Hargeysa ku yaala ee daamurka ah inta badan daamurkaanu eeganay moogtay wadooyinka iska jajaban xaafadaha dhexdooda maanu eegan in marka hore dawladdu ayna daamur saarin laakiin kuwii daamurka la saaray kuwa jajaban marka inta badan dawladdu inta badan way dayactirtay wadooyinkii halbowlaha magaalada badankooda laakiin dhowr wada noo soo baxay inaanu eegno sida loo dayactiri karayo wadda waxay ahayd wadadan jeelka saldhiga dhexe garamarta wadada hotel guuleed ka laabta wadadan cabaayi xaggan u kacda wadooyinkii aanu focuska markaa saarnay annagoo haddana ku sii xulanaynay wadada laftarkeegu waxaanu ognahay baahi fara badan marka la samaynayo in loo baahiyo wadada in la xidho in kolba la helo meeshii laga laabi lahaa baabuurta ay ka laabi lahayd xidhaysa awooddaad ku xidhi lahayd inaad wadada leedahay iyo awoodda dhaqaale gasha oo annaga ahayd lacagtiina la siiyey $400 dee waxay wadda ka qabatana aynu yar tahay $400 wax badan aan ka goynayn wadda marka la eego marka annagoo isle ku sameeya effectiveness ku sameeyo hawshiina bal intay qaban karto $1400 waxaanu dooranay wadada labaad ee Jigjigeer hotel guuleed ka laabta oo ahayd markii horena wadadii koowaad ee Jigjigeer intaan wadada kale la sameyn inaanu taa dayactirno wadadaas oo aad u burburtay oo imika baabuurta iskaga beedhanoo saxmad fara badan ay ka jirta dadkii xaafadaha Jigjigeerta xaggeega sare iyo qaybtan Saacadiin iyo xagga marka loo baxayo marka labada wadda isku soo dhacaan wanka iyo tuugu saxmad badan ay ku keento marka wadadaas oo ahayd wadadii qaybta Jigjigeer Mansoor baabuurta tagay soo dhan ay kaga beedhi jirtay inaanu dayactir ku sameeyno haddana marka waxaanu eegnay $400 wadada intaa leeg intay leeg bay ka galaysaa markaanu ogaanay intay ka qaban karayso waxaanu soo raadinay horta bal dawladdiidii ogolaan lahayd hawshan maalintaa waxay ahayd maalintii xusbiga la duminayey waxaanu soo raadinay Mayor Solteko inaanu bal ka soo heegno xafiiska adeegga bulshada wixiiba waanu soo weynay waxaanu tagnay wasaaraddii gaadiidka oo nasri bal xagga wasiirka ka soo wareega wasiirka isaguna noo waayey taymka markaa inta dambena su'aalahan kaga jawaabi doonaa annagoo markaa dhisnay wadda 200 oo mitir ah oo ka dayactirkayga ku sameynay inta indhuhu qabanayeen oo in badan oo baabuurku ku soconayo 200 oo mitirna ayna wax yar ahayn taas oo jaydeedii daamurkeedii wax walba u sameynay oo ka dhignay wadda madow maanta oo caadi oo la mari karayo marka wadadaas aanu dhameystirnay wadadaas oo nagu qaadatay inaanu 24 saacadood iyadoo loo sheegay in waqti lagu kordhiyay aanu haddana anagoo hawshadan humar ku guda jirnaa aanu sanadii
lacagtiina idigoo ka faa'iidaysanaya oo shaqaaleyna mar hadduu idigu jiro 24 saacadood kaga gaadhsiinay iyadoo 9 habeenimo nagaga ekayd 7 habeenimo meelaha annagoo haddana u dhabar adeegnay inaanu intaan waddadii dib u furaynay ilaa habeenkii 12 u taagnayn intaan waddadii dib u furaynay aanu xidhnay marka lacagtii $400 bay ahayd soo maaha $400 sidaad u kharash garayseen $400 waxaan u kharash garaynay $130 waxaana laga soo siiyey foostadii daamurka haydan soo iibsanay $102 waxaana loogu keenay allahumma salli calaa maxamed maxaa la yidhaha jaydii aanu laamida ku samaynay iyo $120 oonu inamadii meesha ka shaqaynayay siinay $10 oonu xaabadiin foostada ku shiilnay aanu ku soo iibsanay iyo $15 oonu agab bahladii waddooyinka lagu xaadhiyo waxaa ku soo iibsanay marka lacag $15 meelaha ku dhow oo marka hore inamada $4 oonu tax ka siinay mooyaane oon xisaabta guud ku jirin ayaa nooga soo hadhay markaan effective oo wax badan qaban weyda hawlahan u baahnayna kale farsamadan engineering ayaa idin ka caawiyay idinku waxa injineernimada hidiin moogta annagu injineer ma nihin laakiin waxa naga caawiyey tiimka miyaad la sheer garaynayay su'aaliyo jawaabihii saaxiibadaha kala jawaabaan ku heshiisay aad ka jawaabto markan uu aniga kule 12 wax ku dhow 12 meelasan Microsoft ka soo helnay isaga inaan injineer dawladda hoose ka socda yiri inaan kan ka haysta haydii soo cabiro meeshu waxay u baahan tahay oo dhan ka bacdina isaga shaqaalaha idii diraya marka inaan buu noo diray markii dambe inaan kaasa shaqaalaha dambe noo soo diray markuu waddadu waxay u baahan tahay intaan u baahnay inaan dhisno aan kharashkaygii isla eegnay isaga noo soo diray markii dambe shaqaalaha 200 mitir ma yaraa marka ma 200 mitir oo ku dhanbaad dhamaystirteen ha oo ka kaba ilaa 25 god ay ku yaaleen ayaanu dhamaystirnay su-aashaasaan still isweydiinayaa cabir 200 mitira ma la yara qorqorxiyoon daamur baa lagu daadiyo in la sameeyo baa loo ekeysiiyey mise haddii meeshaa la jeegareeyo samayn saxa iyaad isleedihiin $400 baan 200 mitir si fiican ugu dayactirnay mise marka horeba dee dhaawac badan ma aysan qabin meesha talo bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ayay mawduuca ayaga in aan dayactirno waddo jajabtay ay dadkuna u baahan yihiin ma yahay inaan waddo hagaajino amaba annagu aan gacantayada ku samaynaynay ee meelo jajabtay ayaanu hagaajinaynay marka saas darteed bay ku noqotay 200 mitir ilaa meel iyo meel u yar kala fogfogaayeen meesha saas darteed bay ku noqotay godadku intee la leekaayeen ma qiyaas ma ka bixin kartaan 25 god baad imika sheegteen waxaan qiyaastii haddaan kugu sheego waxay noqon karaan godadka kuwa ugu waaweyn oo kale inay noqdaan kuwa baabuurku markuu taayirka uu ku dhufto oo kale dee kuwa ay dhacayaan halkan imika ilaa meelaha khashaafadda imika isugu soo muuqato oo kale ay qaar leekaayeen qaarna ay iska hayeen kuwan ooda inta badan biyayaashu ay ka saaraan ooda xoogaaga yar leeg qaarna kuwa laamida hareeraha ka qarxay ahaayeen wax caawimo ma hesheen dawladda hoose oo kale haddaad u tagteen meeyarka oo kale may wallahi horta xagga been lagama sheegay anagu maayarka caadaan u weydiisano waxaan ku nidhi maayar nacaawi calal aqal kale foosta daamurna siisana wax nagu caawi markaasuu yidhi maanta idima caawin karana hawlaha kalena ku jirnaayo laakiin intaad haysataan wax ku qabsada injineerada aan noo dirin mooyaane wax kale kamaan helin ogolaanshaha mooyaane iyaba waa caawimo de injineerada hadduu farsamo yaqaankii idin siiyey laakiin wax kale maaha wax sahlan dee hadda warbixintiina waxa ku jirtay sababtaan halkaa ku dooranay waxaa ka mid ahayd baad tirahdeen iyada oo dawladda hoose ee aada waddooyinka u dayactirto aada loo dayactiro waddooyinka marka dee maxaa idin waddooyinku inay dayactiran yihiin miyay ka muuqataa hay mid baa jirta iminka dawladdu intii hore ha fadhido dawladdeena hoose laakiin intii dambe iminka mararkan dambe u dambeeyey waddooyin fara badan oo magaalada ku yaala way dayactirtay markii hore wayna dayactirin oo imika tii xeeraawr hadday noqoto tan hadday noqoto tii iskoyska xagga sare ka baxaysay hadday noqoto boqolyo ka tokoy samaynayeen hadday noqoto tan maxamed mooga tagta way wada dayactireen kuwan dambe laakiin tan may dayactirin waay hal su-aal baa ii hadhay idinku saddexdiinu reer jigjiga yar baa tihiin maxaa ku xulateen halkaa jigjiga yar ileen meelo badan oo jajaban baa magaalada ahay bismillahi raxmaan raxiim horta anagu reer jigjiga yarna mana dhoweyn laakiin waxaan ku xulanay uun waddadaas dee godadkeeda iyo saxmadday waddaday lahayd ta kale waxaad horta baahi walba mar baad ogtahay moogta waxaan arday jaamacadda dhigtaa anagu laftarkeega wadda xaggaa u tagaa marka baahi aanu ogeyn bay ahayd markaanu soo ogaanay tanna kasii baahi new generation baa dhigataan marka waa dariiqaa martaan annagu ma marnaba laakiin arday kaloo jaamacadda dhigata laftarkeega martate marka warbixin baa idin kala waanu aragnay mahadsantihiin okay bismillahi raxmaan raxiim waxaanu soo gaarnay gabagabadii iyo judgmentkii oo la ridaayo
marka laba su-aalood baa qolo walba la weydiinaya waan sukiin raacinayaa sida ugu dhaqsaha badan ee ugu kooban waad uga jawaabeysaan qoladaas haddaan ku horeeyo qolada Addis Ababa University oo ah Daryeele maxaad isleedihiin habeenka caawa asxaabtiina kale ama gruubkan kale idinka soo horjeeda waad kaga guuleysan kartaan waxaan isleenahay waxaad kaga guuleysan kartaa waxaan hagaajinay 3 wado oo aad u muhiim ah oo isleenahay waa halboolayaal oo ku jirto wadadii ciidanka ugu hawsha badan ee demdemiska ay mari jireen marka hore saxmadda ku haydii la soo wareegi jireen maxaa isleedihiin galgaloolo weeyaan galdaloolo ay idinkaga guuleysan karaan saaxiibadiin waxaa kaloo kaga guuldareysan karaa horta marbay guushay guuldaradu guul tahay maanta waxaan joognaa markii guushay guuldaradu guul kale dee ha wanaag baad sameynaysaane ummaddan waxu qabanay laakiin waxaan kaga guuleysan karaa horta member of aan ku shaqaynay memberkan ku shaqaynay labana iyaguna waa 3 taasoo kale waan odhan karaa sidoo kale waxaan odhan karaayo kale dee nasiibkii dadka kale nasiibyahooda badan okay waad wareejinaysaan idinkuna su-aasha horaad ka jawaabeysaan maxaad leedihiin waa idinkaga fiicantihiin saaxiibadiin waad ku guuleysan kartaan taa haddaan isku dayo inaan ka jawaabno waxaan isleedahay waad kaga guuleysan kartaan annagu wax deerta indha qabanayaanoo la arkayo oon meel kooban ahayn wax yaroo kooban oo dee la arkayn ayaan qabanoon isleedahay waad ku guuleysan kartaan iska daaya ha kirtis garanaya ayaan ka hadlayaan wax indha qabanayaan baan huri ayaad qabateen ayaan isleedahay dee masaafo ah oo dadkuna wada arkayaan okay maxaa la idinka guuleysan karaa oo daldaloola ah waxaan is odhan karnaa waxaana lagaga guuleysan karaa waddadan sameynay inay u yar badneyd wadda xaafadeed well done waad mahadsantihiin hadda guddiga ayaa ku dhawaaqaysa cidda laga badiyey ee barnaamijka ka hadhay bal aynu daawano bismillaahi raxmaan raxiim habeenkan caawa ah barnaamijkeena waa gebagebo waxaanan ku dhawaaqaynaa natiijadii sidii labadii gruub ay u kala heleen hawl wanaagsan baad u qabateen ummadda waana hawl aad u fiican ood ku ammaanantihiin labadiina kooxoodba gari 2 nin kama wada qorsliso horaa loo yidhi caawa waxaa halkaa ku hadhay oo guushii laga helay qolada la yidhaahdo il naxariis ee new generation ka socotay marka waxaan labadiina qolo waan idin hambalyeynaya laakiin idinku saaxiibadiin usii hambalyeeya mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim horta laba nin kama wada qosliso laakiin horta waxaan ku wada faraxsanahay inaan wax bulshada ku soo kordhinay annagu haddaan imika hadhayna iyagunba haddana qaybta kale sii dhammaystiraya aad iyo aadna way u mahadsan yihiin wasalaamu calaykum qabyadu noloshay ka qayb tahayo waa horyaa markaad qardhistaba qolbaa madhani qabyadu noloshay